ururka horumarinta gargaarka ee danyar ayaa deegaanada dhaca galbeedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ka sameeyay biyo dhaamin maadaama deegaanadaasi ay ka jiraan xaalad biyo la'aan aad u baahsan oo saameeyay dadka deegaanadaasi ku nool. Deegaanada biyo dhaaminta loo sameeyay ayaa waxa ay kala yihiin Suuban Salaama, Qandal iyo Fuuma oo dhaca galbeedka magaalada Kismaayo. Dadka degan deegaanka Suuban Salaama ayaa ka mahadceliyay biyo dhaaminta loo sameeyay iyagoo sheegay inay aad ugu baahnaayeen biyaha ay soo gaarsiiyeen ururka horumarinta gargaarka ee danyar oo ololahan waday. Caalamiin waxaan u mahadcelinaynaa ururka danyar oo maanta biyaha na siiyay nooleeyay dad iyo dunyaba baan u mahadcelinaynaa. Waxa kale oo ka codsanaynaa hadii dadweynaha waxaan ka codsanaynaa dalka waa lagu wada ooman yahay, barkadaha kore waa lagu ooman yahay, meel kasta waa lagu ooman yahay, dadka waa xoolaale looley gaariley geeley kulli waa la wada ooman yahay. waliba dadka looleyda xoolaha uma gadmaan, loodi waa ka fafadhida, waa dhibaataysan yihiin, waa baahan yihiin, waa ooman yihiin. hadee waxaan u baahanahay in gacan oo dhulkaas ooman oo ku dhibaataysan annagana waa u mahadcelinaynaa ummadda kale ee gacanta na siisay. waa ilaahay waa ku roon yahay hadda alxamdulillaah rabbil caalamiin. waa u baahanahay biyaha, waa u baahanahay baad ku xadideena ma jirto abaaraan ku jirnaa wixii walaal dadka reer miyiga oo xoolo dhaqatada oo duurkan ku nool baan anaguna dhibaato badan baa jirta oonka weliba u sii daran yahay baan ugu haysata duurka. waa waaye duunyada iyo dadkiiba labadu meesha waa ku oomanahay. meel kale waxa nooga imaanayaan mala xaq ilaahay inuu roob naga siiyo ma ahan meel kale hadda anagu hadda waxa leenahay waxba idin kaga imaanayaan awal maana ogsoonin. dhibaatadaas oonka ugu haysa duunyada saas oo kale waa iska baahan tahay. duur waxay ka soo daaqaysa malaha, dadkii fiirinaysa maakaalkii waa loo gadhayaa, waxa loo gadayaa moordidii, waxa loo gadayaa hadii la maakaalkii, waxa loo gadayaa hadii la galeydii, sidii dadkii baa loo masruufaya ayagana waxa halka jooga dadkii ayagu isku masruuf waay. ooda laga soo qaadaya inta lagu soo deynaya galeyda loo daadinaya, moordida loo daadinaya, maakaalka loo daadinaya, saas duurka ku aadaan wax kale ay duurka soo cunayaan malaha. dadkiina wuxuu rabaa guri buu rabaa xoolihii wax gadmahaya oo hadda suuq la geynayo oo gadmayo fiican malaha way iska daa. Cabdullaahi Mahad Cabdi oo ah madaxa ururka horumarinta gargaarka ee danyar ayaa ka warbixiyay deegaanada ay biyo dhaaminta ka sameeyeen maanta, isaga oo bulshaweynta Soomaaliyeed ka codsaday inay soo caawiyaan walaalahooda oonku ku dilay deegaanadan. maanta taariikhdu waa 20 bisha 3 2021 sida arkaysaanba waxaan joognaa tuulooyinka ku heerarsan magaalada Kismaayo. halkan waxaa degan dad reer baadiye ah. wadanka waxaa ka jira abaar ba'an. ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahay madar khayr qabana siiyo, gacantiisa lagu dhargaa. ilaahay waan ummadan u baryaynaa silcsan xoolihii ka dhamaanayaan oo ayaga oon dartiisa la baaba'ayaan. maanta sidaan hore u sheegay taariikhdu waa 20 bisha 3 2021 anagoo ah ururka horumarinta gargaarka ee danyar. waxaan maanta deeq biyo dhaamina u soo aadnay dadkan tabaalaysan ee oonka u dilayo. ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay gacantiisa uu la soo gaaro, raxmadiisa ilaahay uu soo waasiciyo. dhammaan ummadda islaamkana waxaan ugu baaqayaa in dadkan dhibaataysan ee oonka la la'anayo xoolahoodii ay baqtinayaan oon aawadiisa in lala soo gaaro. hadda tabarucaadan yar ee arkaysan ee biyo dhaaminta ah waxaas ku soo xilqaamay dad ka danqaday fiidiyoyaasha ay arkeen dadka abaarta ay dilayso. si awadeed ah ayaa maanta waxaan u keenay ilaa iyo 3 booyadood oo biyo ah ayaan u soo qaybinay. haatan waxaad arkaysaan dadkan arkaysaan waxa kayd u ah gaari dameeradaas dushooda bacaha lagu xiray iyo bacahaas dhulka ku jiro iyo jeerikaamadaas ayaa biyo ah. waa fahmi kartaan marka qoys dhan meel degan kaydkoodu uu yahay gaari dameer bac la dul saaray kayd uma noqonayo oo xoolihii biyo ay rabaan, dadkii biyo ay rabaan, salaad la dukanayo, dadka islaam ay yihiin. marka dhammaan ummadda islaamka waxaan ugu baaqaynaa sida ururka horumarinta gargaarka ee danyar ugu soo gurmatay in loogu soo gulmado. runtii ummadan way la'anayaan, raashin ma haystaan, beerihii waxaa ku habsaday anyax iyo abaaro. marka raashin way u baahan yihiin. bishii Ramadaan ayaa nagu soo foodle oo khayr ka badneed ummadda islaamka. marka waxaan ugu baaqaynaa dadkaasi boqolaalka qoys ah ee arkaysaan ee sidaas u rafaasan ilmihii biyihii saaki aan keenay naf u ah koobka sida ugu cararayaan in laga soo danqado. ilaahay tabaaraka wa ta'aala wuxuu leeyahay irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa. u naxariista dadka jooga dhulka, ilaah baa idin naxariisanayo.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين maanta taariikhdu waa 20 bisha 3 2021 waxaan joognaa magaalada Kismaayo xaafad ka tirsan xaafadaha Kismaayo lagu magacaabo New Kismaayo xaafadan runtii waxa degan dadka arkaysaan waa xaafad cusub magaceedu wadata New Kismaayo la yiraahdaa dadka degan waa dad danyar ah waa dad qaxootigii barakacayaasha ahaa sidii dadkii laga soo celi xerooyinka dhadhaab ifo xagardheer dhagaxley ma haystaan wax biyo ah anagoo ah ururka horumarinta gargaarka ee danyar anigoo ah wakiilka u joogo magaalada Kismaayo macallin Cabdullaahi Mahad Cabdi iyo tiimkayga arkaysaan maanta waxaan u fulinaynaa oo wakiil ayaan ugu nahay booyadi biyo ah oo qaarna saaki aan ka soo qaybinay tuulooyin ka baxsan magaalada Kismaayo sida Fuuma Soban Salaama iyo Qandal waa booyadii afraad ee maanta ee taariikhdu tahay 20 bisha 3 2020 aan fulinayna anagoo ah ururka horumarinta gargaarka ee danyar yaan waxaan ugu faa'iideynaynaa dadkan masaakiinta ah ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in ilaahay uu naga soo deeqo rafaadkan iyo oonkan dadka haysto raxmadiisana ilaahay uu na siiyo dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogto waxaan ka codsanayaa anigoo ah wakiilka ururka horumarinta gargaarka ee danyar magaalada Kismaayo in dadkan masaakiinta ah laga soo gaaro runtii aad bay u dhiban yihiin ma haystaan wax raashin ma haystaan beerihii abaar iyo wax isku darsamay iyo anyax waxaan ka codsanaynaa bishii barakeysneed way soo socotaa inaad u soo gargaartaan ilaah baa gargaar bixiyo oo aad raashinkii ku afuri lahaayeen aw soo dirtaan insha Allah rahmaan biyo ma haystaan waa arkaysaan rafaad ka muuqdo waa aragtaan anagoo ah ururka horumarinta gargaarka ee danyarna waxaan diyaar u nahay barnaamijkan inaan ilaahay dartiis aan u fulino ummadda islaamkana aan soo gaarsiino waa aragtaan insha Allah rahmaan liiska lagu yeernayo waa aragtaan boonooyin baa la 104 bay marayaan qoys hadda booyad biyo ah waa dareemi kartaan oo 100 intaasoo qoys isticmaalayso marka dhammaan waxaan ugu baaqayaa ummadda meel kasta joogto dadkaasi ilmaha wata ilmaha kororan ee mulaha ah ee gurigooda ka soo bixiyaan danta in ay soo saacideeyaan biidnillaahi alkariim dhammaan intaas baan ka codsanaya anigoo ah macallin Cabdullaahi Mahad Cabdi جزاكم الله خير نبينا عليه الصلاة والسلام وحير أفضل الصدقة سقي الماء وعلى صدقة وحا وفضل بدن بيو ورابن أرنتان أوضا وبيو ورابن ضمان وحيد كعصاني أمركو ودي مر لباد إمر سدحات إن ضدكاس إسلام كأتسو ساعديسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.